برضو عندها أسئلة موضوعية. من من المفسرين الذين ذهب إلى اعتماد أقوالهم أبو حيان من السلف مثلا؟ أكثر واحد ذهب إلى الأخذ بأقواله. وأبي حيان يعني اعتمد ابن عباس واعتمد كذلك من السلف المجاهد وتلميذ ابن عباس مجاهد ابن الجبري. طيب أمشي معاي. يبارك فيك ويبارك في عمرك ويطول عمرك في عافية. ونعمل عنوان وأعمل التوصيات وفكر بفقرات. sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimadiinka Soomaaliyeed kuwada ugu caansan ahna gudoomiyaha jaamacadda Daaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu qadka Skype-ga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya uu kaga difaacday buugga shahaadada saddexaad ee PhD-da jaamacadda Al-Budana ee dalka Suudaan. intii uu ku guda jiray sheekha difaacashada buuggiisa ayaa hortiisa qadka Skype-ga waxa ka soo muuqanayay madaxda jaamacadda Al-Budana ee dalka Suudaan oo xiriir dhow la leh jaamacadda Al-Hilaal oo iyadu waxay jaamacaddii suurtageliday barnaamijkan waxaana su'aalo toosan la weydiinayay sheekh Abuukar Xasan Maalin oo isagu difaacanayay buugga shahaadada saddexaad ee PhD-da. ugu horreyn sheekha markii uu soo gabagabeeyay difaacashada buuggiisa ayaa waxa uu kaga mahad celiyay madaxda jaamacadda Al-Budana iyo maamulka jaamacadda Al-Hilaal oo labaduba halgan وقلي فضلين برنامج كان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. مانتي تاريخ أي تهاي لاتين اللحظة بش السدحاد لبكون سجالي تبنكا وفقسن سجالي تبنكا بش رجب كنا فربقول يا فرتنكا anigoo ah Abuubakar Xasan Maalin waxaan ku niqaashay risaaladaydii doctorada cinwaankeedu uu ahaa اختيارات أبي حيان الأندلسي بالتفسير دراسة عرضا وموازنة وتحليلا. وحان إلهي سبحانه وتعالى أولا ومهد علن إلهي يفضلي رحلتي iyo safarkaygii dheeraa oo aan u soo galay diyaarinta risaalada doctorada ilaahay bilowgii iyo dhamaadkiiba ii fududeeyay ayaan u mahad celin walillahi alhamdu ala dhalik. ثانيا waxaan u mahad celinaa jaamacadda Butana muassiska iyo mudiirka jaamacadda Butana Dr. Ibrahim iyo maamulka guud ahaanba jaamacadda Butana وكمد يهي أستاذ حسين iyo tiimka la shaqeeya guud ahaanba iyo ardayda jaamacadda ayagana dhammaan waan uga mahad celin maadaama jaamacadda maaragtaa runtii jaamacatul Hilaal oo uu hogaamiyo ama mudiir uu ka yahay Dr. Ibrahim iyo maamulayaasha kala duwan walaalkay Ustaad Xuseen waxaan uga mahad celin xiriirka ay inoo sameeyeen jaamacadda Butana inaanu maaragtaahay arday aanu u noqono oo aanu ka diyaarino marxaladii jaamacadda qaybteedii saddexaad ee doctora oo maanta aan ku niqaashay ama aan ku dhameystiray risaaladeedii aan ka diyaariyay doctorada. waxaan kaloo u mahad celin mushrifkaygii qaaliga ahaa Dr. Prof. Sufyaan Maxamed Alxaaj. waxaan kaloo u mahad celin sidaas oo kale Dr. Qaasim Xuseen Cabdiraxmaan oo isaguna lujnadii kamid ahaa ila niqaashaysay iyo Dr. Haydar Suleymaan oo isaguna niqaashka yani qayb isaguna ka ahaa iyo Dr. waxaan u mahad celin isagana Balla Aadam oo isaguna kamid ahaa lujnatul munaaqasha dowrkii wanaagsanaa oo ay ka qaateen risaaladeyda inay soo gudbiyaan wixii akhdaa ah ama khaladaada oo risaaladu ay lahayd oo runtii ay waqti badan ay ku bixiyeen waan u mahad celin. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna u mahad celin jaamacadda Hilaal oo runtii ayaguna door weyn jaamacaddu ka qaadatay sidii aan u bilaabi lahaa una dhameystiri lahaa doctoradeyda iyo risaaladeyda ayagoo garabkayga istaagay aadna ila shaqeeyay. waxaan ku ammaanayaa maamul wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo wajigooda furfuran oo ardayda ay maaragtaa kula mucaamaladaan oo si habsami leh
barnaamijyada ardaydu ay u baahan yihiin iyagoon kadib dhicin iyagoo maaragtay mawaaciidda iyo awqaadda ardayda ay u qabtaan bilow iyo dhammaadba ay runtii sidii ugu talagalay barnaamij walba uu ugu dhammaado aad ayaan uga mahadcelin jaamacatu hilaal madaxdeeda mucallimiinteeda iyo maamulkeeda guud ahaanba dhanka kale shiiqa uu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inuu maanta yahay dareenkiisa mid aan la soo koobi karin uuna saa'id u faraxsan yahay maadaama uu hantay waxa uu ku taamayay in muddo isagoona dhanka kale ammaan iyo bogaadin u jeediyey bahda Ras Media oo qayb ka ahayd qabsoomidda kulankan buug difaacashada ahaa maantana runtii waxaan dareemayaa farxad aad u weyn maadaama Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ugu guuleeyay in marxaladii maaragtay saddexaad ama mustawihii saddexaad ayaguna maaragtay Ilaahay uu dhameystiray Ilaahayna uu ugu guuleeyay oo doctorada waxa aanan mar walba halmaamaynin bahda Ras Media oo ayaguna runtii qayb weyn ka qaatay marka aan niqaashayay inay maaragtay ila garab istaagaan barnaamijkan maaragtay yani Skype iyo qayb ay ka ahaayeen in wax ka diyaariyeen iyo barnaamijka dhanba maqal iyo muuqaal sidii maaragtay loo soo gudbin lahaa ayaguna ay ka qaateen runtii dowr weyn ayagana waan u mahadcelin jazakumullahu khayran jaziilan kaalinta ay ugu jiraan horumarinta bulshada iyo waxbarashada iyo diintaba ayagana waan uga mahadcelin ilaahay khayr badan ha ka abaal mariyo intii ila garab istaagtay heel iyo hoo waan u mahadcelin jazakumullahu khayran jaziilan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jaamacadda Al-Hilaal oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho iyo jaamacadda Al-Budaano oo fadhigeedu yahay dalka Suudaan ayaa aalaaba waxay iska kaashadaan kor u qaadista iyo tayeenta waxbarashada Soomaaliyeed Cabdixakiim Xasan Axmed shabakada wararka Ras Media magaalada Muqdisho